gabadhu shalay bay hadashay isagoo hore u hadlay gabadhu waxay tiri ilmaan u dhalay waanu isqabnaa annaga xaajigeygii waa xaajigeygii wasjecel meesha waxaad ka ururinaysaa qabiil iyo labada reer isma geeyaan waxaas annaga nooma taalo habi baan isku nahay aniga ninkii waan isku faraxsanay haddii aad ilaa warqadii meherka waa tambatir warqadii meherka haysaa ayaa haysaa idinka ay u kalifay inaan warqadaas soo saaro hadal xumidina okay farxad marka waxaa ku soo baxay dagaal dagaal xariir dhula isagoo booca loogu tukumayo ayaa markaa gabadhan soo baxday lagu murmursooday waaye sheekadaasi waa sheeko la siyaasadeeyey waxaana lagu dabaqayaa oo isugu soo ururaysaa barkhad waa nin gabooya sidee gabar reer Hargeysa uu guursan karaa quudhuwaad intaasa ma geeliin quudhuwaagaas oo wax laga soo gudbaya ayaa la doonayaa in marmarsi looga dhigo isba guursaday maxaa dadka isjeclaaday ee isguursaday ee wax isu dhalay ciyaal bay isku leeyihiin maxaa hadalkeena haye barkhadka maxaa lagu sanfay marka haye xagee laga raac gabooyahani waxaan waa marmarsiya haye wuxuu doodo badan buu qaban jiray xisbiga ku dhaleeli jiray haye ninka la yiraahdo ii sheeg xisbiga kulmiye haye ayuu aad u dhaleeli jiray haye وأن أفتحنا وأن قويها وأن دغيرها وأتكسر وايد هي مربى مد بكسو أديان حسب كل مية هي وحنا سوفريسيان لأن أنا إسكن مقام هينو عيتما وافيان حسب كل مية بوني بالله يفقو قريه يفقو قريه هي ضد معان أو حسب كل مية محو كسو كردي وضنك أيو ليش أو أي ضد صوص أيو ليه أدو قبوياتها هاك بعدها سوا هادو يايدا marka laba noo isku standard ma yahayn halka dooda maanta waxa ka soo baxday ninkii u dooday kulmiye wuxuu yiri annagu imika shaqadii markaan wax walba soo dhameeyay hadda waxaan ku jirnaa faakahaysi iska bashalayna bashal haye faakahaysi kelmadda faakahaysi waa kelmadaha loogu hadlahayn badan yahay magaalada Hargeysa haye ee ku soo baxday dooda barkhad iyo booni haye فكيس halka marka dadkii ku qoslayno kelmadii meel walba ma taala xisbiga kulmiye faakaysiga waa ka xanaaqan haye hada fakaysi tiraad waa jeer waa kulmiye haye daraad ama weegan barkhad wuxuu ka hadlay dood adag ka keenay biyo la'aanta Hargeysa ka jirta dhibka ka jira iyo abaarta iyo biyo la'aanta wuxuu dhaliilay wakaalada biyaha haye wuxuuna yiri dawladda hoose oo haatan si fiican u shaqeynayso daacadnimo waa in la hoos keenaa wakaalada biyaha ماشي هذا سارد لقى سوريتشيا هي مركز هرقيسي اي بي هرس هيا وهذا في عن ما وحكالي فالحمضة بيها كهيستا عاصمة الصومال وعاصمة دي اي دمير الأحمرين تناكسده ريا بيولو هي شمري هي ايوه هي هذا واحد اللي يقولي أفرتي فاصل $8 وغالية يا الباقي بيسميس $8 يا والله هيدا مرة يا هيد سمع أرنكاسي دجال كيدي أيا وحو كاني قبل بو نكاسي وفرح مي وكور وهر جوسدي قبل لي بقى لكلفي وصوفر يست أف كيدي كره هي وكقرنسا إن نكاس قبان على تونيكيجا ونكيجي بلاد نيوبل إسقابدي إمك وحرام أدمرت كيف متشوني كان ليني حي سجور سنين مركب حي سجور سنين بالعكس كده إحنا قلنا يعني إن يسكون سام معها إن حرام ونده كوس عم به أساسا نقول كورك حلاشها برنامج كان إنك صار أنا كهالله وحيوك اللي في فهمتي ما أنت أنقذ كل سقط نين يلي قبل أيام أديرو هاي أديرك ويان بقى هيا صفرس كاسة ور هي قبل يدا برخة وحيد وفرح مي كو منقبه ساسو المكان ده أدير كنا نقول بالله عبيد مالش قبل وحكو عدينا يقولكنا ودي دي وحكلام وحكو عدينا يا جماعة وحكلام وحكو عدينا وإيه شركة شراء إذا نكاسو قبتي قلنا يا حردا ياسينو gabadha maxaqeedii buu u dooday mise gabadha ceebteedii buu soo bandhigay anigu ma arag family waligeey la gabadhayda waa la baakay ninka diidi jiro reerka doodi jiro hor jiro waa qaba baqaasi bay noqotay
وبالعكس يمكن حلي انا قبر هير فاميلي حلي ما قبو فودا حرام بو كجه gabadhiina waxa lagu qaba ruux haday ninka dooda la yimid ee soo fariistay waduna aakhir sabad waxa weeye gabadhii uu adeerka u ahaa ee walaalkiis laxmiga ahaan uu dhalay wulay gabadhii wasaas ayuu ceebay gabadhii buu caayay isagoo wuxuu soo haystaa inuu shir jiraacid qabtay gabadhii waa flagaadinaya waa flagaadtaas halka la maray haye uu gabadha ceebteeda iyo hawlaheeda iyo arrimaha hawsha u galay wuxuu u galay arinta uu ka hadlay wakaalada biyaha ee uu dhalilay ayuu ka shaqeeyay asaguna warwartid marka waa soo diray dhaqaale uu ka galay waxa ninka gabadhan adeer u ah si aan say u ceebaysid arrinkaas soo bandhig waxa tiraa gabadhan ma naasi waqadan uu yiri ay sidatay meherkii waa been wafiig buu inta dhibaa leeyahay waxa gana qaado ninkaasna waxa imanaysa marka ma arag ninkan ya gabadheena naga soo doonin buu leeyahay والمحور نقص ودنا ورقدنا أبو بين ولا ولي ما عرق فاميلي أنت سوي اشتغل من قبل عيبانية قبل دودي وعاي كان ما أنتو قبل ده ميو أمانة بسوي عاي قبل ده أدبو عاي قبل ده أدبو عيبي قبل ده أدو يقدون ترى أدو يقدون نمكي ميت كذا واحد هدو قاي قبل ده هدو دلي وحي هربخ هدو دلي وياه نكا قبل عليك قبل ده هدي حق درن وسمي أما حقي للدوسية وإن كبر خط ودبعته وجستي محو هاي الله شرعي ومرواي يصير رقم كوها أضياش مرك أضياش الشرع وشغي واي هذا صفرست هاي أول حسن سمينت سميساس قبل ينكي مالنا اللي جمد دعوين مالنا أضياء ما صفرست أي كوض هلا شركة شرعهم بو كبلال لله وإنا إليه راجعون مرك رنتي آد بنا وحماضي إن نكا أضياء waxay jirtay mahmaha la yiraahdo seediga ah la culoobin walaasha isku mubtid seediga isku cayun walaasha isku mubtid ninkaasi wakaalada biyaha ka gubanaya waxa weeye meesha uu ka gubanaya wabiyaha maaha gabadhan iyo waxaan idin sanaduu qabaday hadduu ka cadhooray uu ka ilmo dhalay ba goor la hadlaa anigoodi waa ordaya goor la hadlaa marka ilmaha yar reerkaasi isu dhaleen ayin baa la doonayaa in ريكوردكاس laga xumeeyo uu soo kaco yarkiisa oo halka laga caayo hooyadii iyo aabihii ha khaldan ilmahaas oo marka maskaxda damage laga gaarsiiyo waxaan ila quman in garaadku uu shaqeeyo oo maskaxdu ay shaqeyso oo intaanad u yeeran inaan kamarad sita aad eegtid waxa ka soo bixi karay natiijada ka iman karaysa shirka jaraa'id qabatay ha faa'iido maxaa ka anu wadanka waxa ka soo dhoofay iyadoo arin gabadhi ay leedahay aan soo hadlay laga hadli karaba loo jeedo u kaad kaad weeyash oo hoos loo dhameeyay oo odayaal fadhiisan jiray la dareemi jiray la dareemi imkan waata inta waaye qodobkii dhala qaaday qodobkaasna waa qodobkaas waxaan oran lahaa yaan la isku qaldin siyaasadda iyo arrimaha bulshada xeetinimada yaan la isku qaldin siyaasadda iyo hadii ilaahay ku reeyahay qoyska qoyski